ciidamada booliska Somaliland iyo kuwa RRU-da ayaa xabsiga u taxaabay Sheekh Aadan Cabdi Warsame Aadan Sunne oo kamid ah culimada Somaliland. ciidamada isoowane booliska iyo RRU-da oo saacadu markay ahayd 12:12 habeennimadii Arbacada xalay howlgalkooda fuliyay waxa ay si xoog ku galeen guriga uu Sheekh Aadan Sunne ka degan yahay degmada Axmed Dhagax ee magaalada Hargeysa. goobjoogayaasha iyo qaraabada Sheekha xabsiga loo taxaabay waxa ay Saab TV u sheegeen in ciidamadu ay argagax geliyeen qoyska Sheekha la qabanayay oo maato iyo caruur badan ana ciidamadu ay xabad nool u adeegsadeen albaabada guriga iyadoo aanay jirin iska caabin hubaysan oo ciidamada lagala horyimi sida ay goobjoogayaashu u sheegeen Saab TV oo hiirtii hore ee Arbacadii saaka booqday xaafadda Sheekh Aadan Sunne laga qabtay. waxay maadeen 12 oo wax la xalayto oo Sheekha soo weerareen. Sheekha waxaan dawladda iyo ciidanka argagixisada ee RRU-ga mushkati uga nahay maalin oo dhan Sheekhu dhulku maraya uu jooga hadday masaajid tahay hadday dhul tahay hadday meel laga hadlo tahay marka ay 12 habeenimo gaadho ayaa maatida iyo xaafadayada waxaana lagu hayaa argagixiso fool xun oo dhibaataysan lana dhashay Sheekha meesha lagu dhibaateynayo waxaan ka hadlayaa ayaan ka cabanayaa dhibaatada taagan inaanay ahayn mid iyo laba iyo saddex iyo afar toon inaanay ahayn laakiin ilaa intii imika ay dawladda maxaan ku dhisiiray ay dhalatay annaga dhibti bilaabantay annaga wali weyn haysata waayo inta madaxweyne soo qabsatay dalka waa la ogyahay maxaan ku dhigay dawladii hore ee madaxweynaashii hore haystay de waxaan ku dhigay culimuha ilaa kii hore ilaa kii u dambeeyay ciidamada Somaliland ee amniga ama kuwan RRU-da loo yaqaan markay sameynayaan falka caynkan oo kala ay qabanayaan inta badan waa dadka la xidhayaan falka argagixisnimo walaalka wax xidhay muu leeyahay kooxan حرام إيه كسر الله قد جا علنك اللي ما ضربت رنتي الله دبا ما دبا تاهل تطاس إلهي من تكون داري والحق إلهي ولا كذا نجساري دينتنا إلهي سبحانه وتعالى حلبا إن نجسارا نكاسي تهدي دينتن لجو دينتن مو يعني واحد دبا ونكاسي ور إلهي كعب صدا ور هيس دبنا ور علم الداية كلمة ده وجود بيسي واحد كعب علم الله حد شيخ هو كان علي iradkaygi way ma garatay qalbi lagu jiro waan qoomanay anagu dhibaato way haysataa 4-5 jeer weeyaan ma waqtigu waxa weeye ilaahay subhanahu wa ta'ala diinta raxmadeeda iyo islaamnimada ummadda nabi maxamed ayuu hayay cidna mudilin cidna mudagaalayn waa waldi weeye wanaagsan oo saalaxa oo xalaal lagu dhalay wuxuu dilay iyo wuxuu xantay iyo wuxuu xumeeyay iyo wuxuu dhacay iyo wuxuu dilay midna lama arag waxaan diin ahayn laguma hayo diintana ilaahay waa subhanahu wa ta'ala isaga daliilkiisa u dhiibay soo rogay ilaahay baa soo rogay watii nabi maxamed dhinaca kale taliska sare ee ciidamada booliska Somaliland oo warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen in Sheekha ay soo qabteen kadib markii ay xaqiijiyeen in khatar weyn uu ku yahay ammaanka guud ee dalka howlgalkii ugu dambeeyay ciidanka booliska ay ka howlgaleen xalay waxay ku soo qabteen Sheekh Aadan Cabdi Warsame Aadan Sunne oo khatar ku hayay qaranimada iyo khalkhalgelin nabadgelyo lagu soo xilay isagoo abaabulay kana been sheegay howlgal ciidanka booliska ay ku soo qabqabfuliyeen oo kan ka horeeyay oo lagu soo qabtay dhalinyaro badan oo tababaro iyo dabrid ku sameeyay magaalada agagaarkeeda looguna talagalay inay fuliyaan falal qarankan kullid ah xalay oo bishu ahayd 6/9/2012 waxay ciidanka booliisku howlgal ku soo qabteen wadaadka leeyahay Aadan Cabdi Warsame loo yaqaano Aadan Sunne kaasoo khatar ku ah nabadgelyada qaranka iyo shacabka isagoo ciidanka amniga kala wareegay iska caabin xoogan kadib markii uu soo abaabulay kooxo isugu jira rag dumar iyo dhalinyarada kooxda loo yaqaano himilo kuwaasoo ciidanka kala wareegay dagaal xoogan يعني markii la wadaadkan oo hadda xiran baalistiisa ay noo socoto waxa hadigiisa loo soo maray shifo sharciga waafaqsan ayada waxa loo soo gooyay waana faras kaasi ayaa gurigiisa lagu galay laguna soo qabtay waxaan ka socdaa Saab TV waxa sheegtay in shifo sharciga lagu galay gurigiisa saqbar bay ahayd ciyaal 12 carruur degan hooyadii oo 9 jira dad shidacsan ayaa hareeraha kaga hareeraysan gurigooda dad waaweyn inaan la oran karin ciidanku iyagoo shifo sharciga ku socda ayaa dhiseen tamiyo argagax sameeyay oo ay la sheegay waliba in dhowr jeer hore loo yimid saar la sameeyay oo ubad u dalay ay ka qaadeen xanuun xadiiday la qabto maalin anagu xanuunka dhaqsameeyay waxaan ku sheegayaa ninkaasi shifo sharciga waa fudud baa loo socday
xeer baynu leenahay dastuur baynu lahayn sharcigu ma ogola sharcigu waxa weeye marka waraaq fursad soo galo booliisku kowda labada saddexda afarta habeenimo way geli karaan rasaas baa taallay meesha life bullets oo rasaas nool marka lada caabin baa lagala hor yimi ma waxa jiray dad difaacayay ku qoraystay دميك إبل سمي أبل بو سمي ضد بكرة البوليس يعني واجب كل شغلة يقدر البوليس هو وفصح يا حرق أرتكل تلفاف ووفصح يا إنا حبذ الهلال وأسيش فسر عقصة حبذ الهلال عندنا حكومة نقولين يستقيل الدنيا ولا ساقطة ولا حرية ciidamada booliska oo kaashanaya kuwa ammaanka ayaa sheegay in toddobaadkii hore ay gacanta ku dhigeen koox dhalinyaro ah oo ay sheegeen in tababar ay ku qaadanayeen meesha loo yaqaano Oobaale ee duleedka koonfureed ee magaalada Hargeysa. Sheekh Aadan Cabdi Warsame Aadan Sunne oo salaadii Ciid al-Adxada dadweynaha kula hadlay garoonka kubadda cagta ee Hargeysa waxa uu qabashada dhalinyaradan ku tilmaamay mid xaaraan ah oo sifo sharci darro ah loo maray. Waa markii saddexaad ee Sheekh Aadan Sunne xabsiga loo taxaabo iyadoo mararkii hore ee xabsiga laga sii daayeen aan la sheegin dambiyada dhabta ah lagu helay in uu shiikhu faraha kula jiray. Nuruddin Cali Joog, SAB TV, Hargeysa.